waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay. ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa ilaa tafcal mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka. ilaahay baa le addoonkaygiioo cibaadadayda iyo taacaddayda iyo diinteeda wakhti u samee, aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa ghinan nafsi, baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi. wa ilaa tafcal, haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo, mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi. 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo biisi baan kaa dhigayaa, baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi. albaabada faqriga laga dabooli maayo. haddaan wakhtigeenna qaybinno, saacadna aan u dayna kasbi xalaala, saacadna masaajidda aan ku camirno, oon aakhiradeenna ka fikirno, oon diinteenna ku baranno, oon diinteenna ka fikirno, oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno, oon u tagno oon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno, saacadana aan ku camirno maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno, nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas. tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan baa ilaahay yidhi. laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa ghina nafsi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. ghinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee, waa ghina nafsi, waa naftaada oo deeqtooda weeyaan. ghinadu qalbiga oo ku xasila. qalbiguna muxuu ku xasilayaa? aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah, alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi. kuwa ilaahay rasuulka rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa. alaa ilaahay baa la intabihuu, baraarugoo dhegihiinna fura. qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi, ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane. salaadda markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa. maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaaguu kuu xasilayaa. juz qur'aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa. xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato od culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato, qalbigaaga waa kuu xasilayaa. xalaqata dacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad. man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin bian tibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila. qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday, ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi, samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay, socodkaagaasna uu wanaagsanaaday, jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. qalbigan wax kale ku xasili maayo, lacag ku xasili maayo, dhoofna ku xasili maayo. dad baa dhoofun ka fikiraya, dhoofun bay ka haysataa. dad baa tacliinu ka fikiraya, tacliintan maadiga, oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo. qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada kuu badatee, wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. aqim isalaata lidikri. salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtahay ilaahay dikrigiisa. waladikru llaahi akbar. ilaahay dikrigiisa ayaa weyn. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ila dikru lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir. qur-aankii waa dikr, nebi maxamed waa mudakir, salaaddii waa dikr. inamaa jucila asacyu bayna asafa walmarwa waramyu ljimaar liiqaamati dikri illahi buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam. sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi, iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan, intaba waxaa looga dal leeyahay buu nebigu yihi ilaahay xuskiisa in lagu ogo. gaayat lcibaada waa dikri weeyaan, in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan. fii salaatika, salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso, aqalkaaga ilaahay ku xasuuso, ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso, meheradaada ilaahay ku xasuuso. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi. toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale una jirin, hadhka alle mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi, nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya, nin mar walba
qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay. cabdullaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay. markaasay aragto way la oyday iyadiina. markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa? markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi. markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya. anugu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi. uma intaa kadibna nunaji aladiina ataqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonnaa. wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi. dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur'aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeenni xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa. iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen. nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allaahuma jannibna shaytaan allaahuma jannibna shaytaan wajannib shaytaana maa rasaqtana. markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besigaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi. halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar. waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi. taasaa ii kala caddayn. zuraarata ibni abi awfa raximahu llah taabici buu ahaa imaam almasjid buu ahaa salaat alfajarkii buu tujinayay dadka. rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa fاftataxa suuraة almudathir markuu gaadha faidaa nuqira fi الnaaquur fadalika yowm casiir clى alkaafiriina hayru yasiir halkaa markuu gaadhay khara calى alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata. gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay. faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma albacthi weeyaan. aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay daedna meydkiisina gurigaa loo qaaday. sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar. qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi. xawraa baan ku yidhi xawraaye qasrigan ayaa ilaahay ugu talagalay. waxay tihi nin quraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu talagalay. anigaa carabiya ma cid kalaa? ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa. anigaaba qurayshiya ma cid kalaa? ha ummadda muxamed buu ka mid yahay. anigaa muxamede ma cid kalaa? hawa cumar binu khadaab bay ku tidhi. cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakr sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa la yidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakr sidiiqunbaa ka fadli badnaa. kaasaa maskiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasduur ina cadaaba rabbika lawaaqic. halkaa markuu maraya cumar dhulkuu ku dhacay. faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi. dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin. qulubtooda ayaa noolaato jilcday. innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun. butuun maxaan cunaa, maxaan fuulaa, maxaan qaataa, halkeen galaa, maxaan dhalaa, halkeen tagaa, xaggee wax ka cunaa. waxa adiga laguma diran. adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado. calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad. nin saalixiinta ka mida lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay? maya kama warqabee ii sheega buu yidhi. waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali
sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday roodhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay razaaq waayo man huwa arazaaq allahu rabb alcaalamiin razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali caasigu arsaaqa umana aabba yeelo لك علي رزقك ولي عليك فريضة إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك حديث القدس إلهي بالله أدينا فرائد بانكو صاري أنا أرزاق دادي وانا ساري بإلهي عبدي لك علي رزقك ولي عليك فريضة أنا وحان كركيغا ساري بإلهي لي أرزاق دادي أنا أرزاق دادا بلغ علي أدينا كركاغا وحان ساري فرائد واجبات بانكو سيئي ومعرفة إلهي ugu horeyso إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك haddii adigu faraa'idayda iyo waajibaadkayga aad ka tagta buu ilaahay ku leeyahay anuu arsaaqada kaa goosan maayo kii ilaahay caasiyaba haddii ilbaktinaysa ka waran haddii xubin jirka kamida fadhiisanayso shaqada joojinayso see noloshu noqon lahayd adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii 5,000 oo qof baa ilaahay xalay dhegihii kala noqday markii ilaahay caasiyeen sidee noloshu noqon lahayd bal ii sheega araggii uu ina siiyey waan ku caasinay maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay risiqii buu ina siiyey waan ku caasinay ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim anigu macsiyo ma dayn karaya maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi macsiyo ma dayn karayo cisyaan ma dayn karayo zine ma dayn karayo been ma dayn karayo khamri ma dayn karayo tumasho ma dayn karayo xaaraan ma dayn karayo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi waxaad samaysa ma garanayo anugu ma qiil baan kuu raadiyaa buu yidhi ad ilahay ku caasada ad iga doondoonaysaa ma jiro buu yidhi qiilkaas sheekhaa doonta u teg sheekhku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyda naftaadii muu jiraa waar ma jiraa ma jiro maxaan sameeyaa aday ku taallaa buu yidhi laakiin soo noqo mid baan ku odhanay macsiye ma dayn karaysid ha ma dayn karayo naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday maxaa iga qaalib noqday naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii haye maxaan sameeyaa wuxuu yidhi dee caasi ilaahay laakiin mid baan ku odhan anigu 3 arrimood baan ku odhan ilaaha aad caasinayso arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey risqiisa dee u daa ha ka cunin biyaha ayaa ku siiyey allah hawada ilaahay baa ku siiyey bariiska ilaahay baa ku siiyey caanaha ilaahay baa ku siiyey cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey risqiisa u dhaaf marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo dee risqiisa u daa dee maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi dee siday kula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad ugu caasido mid labaad baan kuugu dari buu yidhi dhulkan aad ku joogto isagaa le uga kac dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi ma jirtaa dhulku waa dhul cirkuna waa cir gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto dadkao dhan gudaha un bay joogaan mid baan maalin number telefoon kala hadlo numberka caadiga wuxuu idhi iska goo buu yidhi sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye war maxaa dhacayo wuxuu idhi dibaddaan joogaa buu ihi dibadda markaasaan ku idhi dibad iyo guda ma jiraane kulligan gudahan ku wada jirnaa gudaha adduunka dhanba waa hal qol keliya halkaa qolka ilaahay baa iska leh war hadda soomaaliya ka wada imanay markaan ka soo tegayna dalkan ma caalam kalaa lagaa furo soo gashay mise dhulku dhulkii unbuu ahaa cirkuna cirkunbaad hoo socotay 15 saacaan diyaarad la soconay 15 saac non stop samaduna sidaan bay dusheeda u taallay dhulkuna sidaan buu hoosta u yaallay
hal qol weeyaan adduunyadu qolka ayaa iska leh ilaahay in lagu caabudaa loogu talagelay in lagu caasiyo looguma talagelin wuxuu yidhi dhulkan isagaa leh haddaad tidhi cisyaankiisa ma dayn karayo uga kac dhul kale ku caasiyo oo dhul kale doondoono dee ma dhici karto ma jirto dee adoo dhulkiisii ku jooga sideed ugu caasin kartaa buu ka yidhi to saddexaad baan kuugu dariye meel uusan ilaahay uusan kugu arkayn ku dhuumo oo halka ku caasi may jirtaa ما جرتها سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار هبان معلم افتين مدو سريسو موجي عليم بذات الصدور يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سميع بصير ويان مخلوق ودن هدي أي ميلس ودا تاغان بريان وأفكوغ إلهي كبريان ومدول ببعيدي سإلهي وشيكتو مدول بإلهي سودكي سوا مغليا بعيدي سن إلهي ندبولو أودي كرا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا عبادي يا عبادي الضمه يجيوبا إلهين ليهي يا عبادي سبحان الله نحريس يسب الله سنة قل يا عبادي الذين أسرفوا كوي مسرفين تاها إيه نفتو دا كوحد قدبي إيه أفر الله باتك الساعة معصيتي قفلت دا كجري هدي أقوير يا عبادي كوا صالحين تتكرينا محاضو ملين مقعوق يري لها فرعون وأوجيها إنه قال يهي إنه قال لما كل من يوجيها إنه أهل النار يهي وأوجيها أي موسى مركو أدري كلها فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه فرعون ولايه موسى هذا اللي يرد بعسا كل هذا لقى يا بينه وانتوبوا إلهينا كبقوا صون غضي وفرعون قال الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال لبني إسرائيل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فرعون وكبروق وقو هذا الله لك وهلا يجي هذه مركي موسى الله دري إلهي موسى كل يهي هذا الجلع سنكون هذا تحود الدبرية كوي مسرفين تاها قل يا عبادي الذين أسرفوا سبب النزول كي يقول عقوش إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي ما كمر كنا النبي صلى عليه الصلاة والسلام أيو تبي وداوي وحش هذا كعب حسد الله يقول وكادونتي كذبتك ويرى حيبتها لغو سو غاري سقو دمعسن با انو كسو طلابه جزيره العرب وارض الحبشه وسو غدبو مركز وحشي ها رسولك الله بان كا ويديو كو يريا سبحان الله انيكا ما انو حمزه دلي وأذيركي دلي أو مشركة أو زنيستي صوت الدين دين شيء يسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شريعة محمد يدو أي شيء يسو قفك إلهي غيرك عابدا إن نف بني آدم أنا قويا إذن يسا إن عذابك الله بالله بايو إن تابع أني قوان كل عين بل أرض محمد يسوي دي يقول الرخصة بوس أن دين الإسلام كسوق لما الله يهيا مركب الصحابة دي صون نقدين رسول كان مكو قوي مادين عليه الصلاة والسلام مركز النبي أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. آياته قرآن كمركي وحشي اللي كر أخرينا وحول إلا من تاب وشرد ككوبات وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط سوي بدنته بالله عنكم مبوحين كريم بويدي شروط بدن بلس دبر دقة ماشي ويسون نقده هذا آيات قرآن النبي صلى الله عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله إلهي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرقي آيات اللي قد الأخرين وحيري هذا أرى بعد مشيئة الله إلهي كود دونا ماشي كود جرتي بالله أنك إلهي الدنب يجينو دافع ما بدوني بويري هاي النسوق عجيب. وأني كين يكونا هذا محمد يا أبو بكر يا عمر يا ماها حسن يا حسين ماها وأيو ووحشي وقاتل حمزة نجي حمزة دلي وياه maalintii nabiga adeerkii la dilay calayhi salaatu wasalaam ee aansaar meydkooga ay uruursanayeen ee nabiga la yidhi waa kan adeerkaa meydkiisii wuxuu arkay halkaasaa laga dilaaciyey xamse calooshiisii intoo la kala dilaaciyey ayaa medhaqiriha uuskiina bannaanka lagu shaydhiyey keryihiisii ee beerkiisina cidlo lagu daadiyey markaasuu nabigu argagaxay calayhi salaatu wasalaam markaabuu saxaabada ku yidhi walaashii safiya soo socotoo ka argagaxaysee horay isku celiyo mara ku duuduuba buu rasuulku yidhi go'isii intuu u tuuray dadna lil maa ka daadatay rasuulkeenna markaasuu yidhi yaa cammi adeerkii ma maqlaya uu shahiiday khalaas wuxuu yidhi 70 quraysha anna waa inaan kugu aargudaa buu rasuulku yidhi markiiba qur-aankaa soo degay waxyiga maxay soo degtay aayadda sheeg fain caaqabtum facuuqibuu فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بالنبي قال له يدي هذا أرجو سنيسد وهذا أرجع هو أرجو سيد بإلهي كويدي ده مدون باللقاء دليل هذا كنا مدون دشوا بإلهي كويدي هذا صبرتين نه صابرين تصبر كابو خير بدن بإلهي كويدي يعني حماس صدق إنكم قادم بلليه ليتخذ منكم شهداء أنك ضمعني بإلهي قاركين إن دينته وشهيدان أدرك وحكم النقصان وشهيد ويان وشهيد أنك الدورين بإلهي كويريه أديك وحبا كامل ناقص منه وحبا كوزيادي لقى مرة بإني طولي مدى يقبيالة أيكو قادة حتى دو أرقودي سنة دي مدون باللقاء دي مدون دي شو حتى تصبرتان بإلهي يري صابرين تصبر كأو خير بدن بإلهي كويري وحمزة نكي دلي ويا نك ونبي آياتها قرآن كل بايد وصغر أيوه آيات دي قدام بيسو نبي وصغر وحي هيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آيات القرآن كمرك الله كان يلقوا آخر يدوشيسا أما هذا فنعم فنا نقبل بيودي مركزا مكلا سوق لي مركابا النبي الله هركان عليه الصلاة والسلام مركز النبي قرتي سكوا شهاتي مركب النبي يقول بل أدرك يا حمزة صاد مالين تودي شنو كشيكي مركو كشيكي يبل المكدعة رسولك عليه الصلاة والسلام مركز يقول وهاجا وحشي إلهي با هداية كولا دونا كسو هديه مركا وجيغيغو كاركا أدركي بان حسوسنا ياي مركا حلقات كسدا صحابة دا أن روح برايو أدكو حقا دميغا فريسة بويري عندي سو هدي أركان وحي حسوسنا ين أدركي عندي سو إني أركت مجعلين قلبي سنة النار إنو قل مجعلين هذا طبيعة الأنبياء سيدا عندي سو وحشي إني أركان أيسن أربين أديركي بكو حصوصنا يا كذلك قلبك محمد مربين إنه وحشي نار وكدعو فإلهي هنو توبت كأنه سقى إن أرزاقيا هذا ندتك إلهي وعاصنا يا المانت وحنا سنة سقى النسيي
haddana waan caasiyaynaa. yaa cibaadii baa ilaahay leeyahay, kiinnii hore, kiinna dambe, jiniya insigiin, kiinayniigu alla ka cabsiga badan haddaad sidiisa iiga cabsataan baa ilaahay leeyahay, mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan. mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan. ibliis calayhi lacna haddaad ii caasidaan baa ilaahay yidhi calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum. culamaa ulxadiid qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi lacna. sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday uu ilaahay u caasiyey, haddaad ilaahay u wada caasidaan buu ilaahayna leeyahay, milkigayga iyo awooddayda waxba iskama dhimayaan baa ilaahay yidhi. ilaahay innaka u baahan. laa tanfacuhu طaaca walaa taduruhu macsiya. waa munaajaad. munaajaadkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd yaa man laa taduruhu الdunuub walaa tanqusuhu اlmaqfira hab lii maa laa yanqusuka wاغfir lii maa laa yaduruka inaka anta alwahaab. yaa man laa taduruhu الdunuub, yaa man laa taduruhu الdunuub, kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow, maqfirada addoommaha uu u dembi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow. waa munaajaad. markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo ducooyinkaabuu ku ducaysan jiray. marka طaacadduna ilahay waxba uma ziyaadiso, macsiyadduna waxba kama naqusto. man camila صaalixan falinafsihi, man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi, man ihtadaa fainamaa yahtadi linafsihi, man shakara fainamaa yashkuru linafsihi, wama tunfiquu min khayrin falianfusikum. bal qur'aanka u fiirso. naftaada haddaad hanuuntana naftaadaad u hanuuntay. man tazakkaa fainamaa yatazakkaa linafsihi, niga naftiisa xumaanta ka tahira ee meelaha xunxun ee nafta u fiicnayn ka ilaaliyay masaajidda iyo khayrka la yimaada naftiisa, ee dembiga naftiisa kaga maydha طaacadda iyo cibaadada iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha, naftiisa u tahiray baa ilaahay yidhi. man camila صaalixana falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi. kii shukriya ilaahay naftiisa ugu shukriya ilahay waxba uma qabanayo. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala inakaa ilaahay u baahan. nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey? inaad ilaahay aad kula baayac mushtaraysan lagu siiyey. araggu waa nicmad, maqalku waa nicmad, wakhtigu waa nicmad, islaamnimadu waa nicmad, bini aadantinimadu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, arsaaqaddu waa nicmad, habeenku waa nicmad, maalintu waa nicmad, dhallinyarnimadu waa nicmad, caqligu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, lixaadka lagu dhammaystira waa nicmad, arsaaqaddu waa nicmad, amnigu waa nicmad. wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ciise bnu maryam calayhi asalaam ayaa arkay nin labada gacmood halkaa ku go'an, labada lugoodna halkaa ku go'an, indhala oo waxbana aan arkayn, jidhkiisana ay ku dhacdee baras oo wada cad, oo ku ducaysanayoo leh ilaaha waxaan ku xamdiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey aniga. waa ninkii? waa nin labada lugoodna halkaa ku go'an, labada gacmoodna intaa ku go'an, indha aan lahaynoo waxba arkaynin, jidhkiisana waxaa ku dhacdee baras uu wada cad yahay. waxauna ku ducaysanayaa yuu leeyahay ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey baan ku mahadiyaa buu leeyahay. nebiyullaahi ciisa calayhi salaam baa ku yidhi oo adiga balaayada kaa maqan ee dadka kale ku dhacdeed ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yidhi. wuxuu yidhi waxa weeyaan dad baa jira buu yidhi qalbi bay leeyihiin, qalbiga ilaahay kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa. carabna way leeyihiin, carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan. ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran baa ilaahay i siiyey. qalban shaakiran, qalbi wuxuu ilaahay siiyey mar walba mahadnaqaaya, iyo carab wuxuu ilaahay siiyey daakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan. qofka qalbi la siiyey ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa, maxabbadiisa, jacayladiisa aanan ku hayn, iyo qofka carab la siiyey ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn,
wax kale uu kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haa way ku dhacday taasaan ilaahay ka magan galayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda hebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigii baaci mushtarkii baa dab ka qabsadoo ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiibuu ku dhacay waa masiibo gaadhi baa la dhacay oo lug iyo gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal berri waa iska dhisan karaa ilmaa ka waashay ka kalaa ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta uu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda uu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daaweyn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhire marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay 40 sannadood malaga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malaga furaha naaraha hayo weeyaan malagaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malagaasay u dhawaaqayaan 40 sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro waxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa uu leeyahay qaala inakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waariyaysan ood ku jiraysaan buu leeyahy dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون راحة ديني تمشى ديني جنة ديني حرية ديني الدون قد كسو قادتين لحدن كي سنة أدوية أياد حقيقة مودين وحين كسو قديمتين وعن عذاب هين ما أنت مليه ديني هل كابد ولي كجري سامبوليه marka maanta adduunyaan joognaa beritool aakhiraan tegaynaa arinii maada qadamta lihada alyowm addoommaha ilaahay ka mid a ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid haa waa nahay addoonkaan u nicmeeyey ma tihid haa waa nahay addoonkan caafimaadka siiyey ma tihid haa waa nahay addoonkan awlaadda siiyey ma tihid haa waa nahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qadamta lihada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku u isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyadu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyadu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu le yaa rabbi waa runta adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga ay siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aadin siisay baa i mashquulisay intaadin siisay iyadoo in ka badana
ayaan adduunyadii kaga imidee ilaahu dib ii celi han soo qaato han kula imaadee ma la soo qaadan karaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib maada yacmal فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بتعالى هذا مر لبعض بكو علن إلهي جل وعلا سؤاش جوابتي بو كان يا إلهي مركابو كسي جيسان يا يولي خذوه قادبوا إلهي ورانيا ملايكتي دي ملايك زبانية الليلة oo jirkooguba ka samaysan yahay naar jirkiisay qabanayaan yuri ibn Abbas meeshay qabtaanba way soo go'aysaa lafihiyo haykal ayaa hadhaya mana dhimanay dhimasho way dhamaatay kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab jirkii markuu ka dhacaba jir kala markiiba loo soo saaraya soo baxaya dhimashana ma jirto markaasuu argagaxaya meeshii la qabtaba way go'day gacanta la qabtay way go'day mid degtuu qabtay way go'day mid xaqan uu qabtay way go'day markaasuu alaa tarxamuun malaa'igtii buu leeyahay madina xariisanayn waa sida naxariis ma lihidino markaasay odhanayaan arxamu raaximiin kiiba kuma naxariisane naxariista naga sugaysa annaga maxay tahay khuduuhu fagulluuh ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه محل عذاب يا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما عرف حق المعرفة إلهي عظمتي سقلبي سميقل جنة نحرست إلهي بلغو قلا ثم وحا لغو قلا إيمان نارتا وحا لغا قبت بعدا إلهي نحرست لغا قبت بعدا ثم وحا لغا قبت بعدا وإيمان ما الله بحسنين ما جرتو مدنا يرى الدنيا الجونا وحا الله إنه كيني ولا ليال إنا فهمنا ويان مسلم dadka kala sidooda ha u fikirin adigu ka duwantahay adigu inaga jannadeenu waa aakhiro weeyaan shahwadeena adduunyada ku gudan kari mayna inaku addunya sijnu lmuumin jeel baad ku jirtaa jeel ninka jeel ku jira hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi ninka la xidhay 5 سنة الله حري أما 10 سنة الله حري والعياذ بالله كسوقات همي جيسوا محي قرمات كبح جلك قور كفكر مايو عيال جيسي كفكر مايو شقا كفكر مايو ضوف كفكر مايو هو الوالكيس وقوين ومحي إله ما شمروا كاسر لما دلين قدين لك مجرين قعان لك مقوين كلية وحال لك قال حرية ما لك قرتي بس qofka la xidhay maxaa laga xidhaa bali sheega xorriyadun baa laga xidhay cuntadii waa la siin hawadii uu haystaa biyihii uu haystaa weliba waxaa la leeyahay iska naso kubaddii baa la odhanayaa ciyaar weliba diintii baad ku baran kartaa waxaasoo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goormaa jeelkan lagaa saariyo xorriyaddaadii lagu soo celin الدنيا سجن المؤمن وجنة سجن المؤمن ومؤمنك ومؤمنك وحاو دون وإيجين وحاو الربا وأركي كرين وحاو نفط دون ما دقي سكرو وحاو نفط دون تبعني كرو ماشي نفط عي دون تمجي كرو مر والبوح لي أنو الدون إلهي بانا هي إلهي بانا برقيس مر والبغادنا يا سيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه خرجك أيا غلام كيسي خرجك أوكين أيا عنت أوكين مالين مرقاس أبو بكر عنت دي اللقمن مركو كبضي أيا غلام كيسي باكوير يا خليفة يا أبا بكر أول وادي ويدين جرت أورنجر تعطاها الكيكة كانتي ما أنت وادي سكع عنتها ما دي ويديسي مركز حاجات كانتي زمن جاهلي ضد نص فالي فال ومش غايد أن كل هذا ما أنت مش غايد دي السوسي يو
cuntadana markaa mushqaayadii bay ka timid buu yidhi abubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq saasuu farta afka u geliyey markaa buu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu yidhi yaa abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacday joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi ma anoo xadiidkii nabigeenna maqlay calayhi salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi naar jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku koro buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaa luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unbaa xaaraana bay ku odhan soomaalidu iminka gaajada unbaa xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta iminka iska dhegaystaan haddii loo sheego la yidhaha war waxaa diintu ma ogolan wuxuu ku odhanayaa ma ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay yaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u geli haddaad xor tahay musqushaa gelina qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karno kulligeen wada bulaacad socotaan nahay bulaacad socotoo lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adh iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa naasuray mooyaane nin walba halkaa waxa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka warran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasa bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaan oo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna kana maanta war balorda musqusha gal baa odhan lahaa adu waxbaa kaa soo waraya ziyaadee ilaahay laakiin waa sataar u ina asturay عيبتني بو قريي يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مركو لا إلا مناجونا يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل إله قروح ذي بنانك أصو ساريو والله عيبتي نقصان تيدا عنك هدادي وقال لها يدين إما دقيستين لكن سترق إلهي بان يقولها الله يا إن يكون سترق إلهي بان مسكيته كفر دان يا الرحمة إلهي شيخ يحيى بن معاذ بها محدثين تبها تابعين مركو دنتي أيام منام بالغو أرك منام دتك ون وناكسنا ويسركيا موقتها دتك يمكن دوف بي كوري ولا دوف سو بدي كتل أبو تلياني قالوا كوري ون مد مركزو أنو والله وان أركانو يوروب قالوا واسيس علاي سلامة والرياض هذا ركت من روم بعد وحي مسكح هذا كجرون بهامك شيطان كوكاسو دحساري دتي وناكسنا جنة أركيين وقيامها أركيين وإلهي وجهي سي أركيين علماء قاركود ركبة إلهي تأتدي سأركي هامك مركز استحضان ركبة هامين والبنبي محمد لكل ما عليه الصلاة والسلام يحيى بن معاذ بكمدها مركو جيري يودي أيام منام لقو أركول لقول يا شيخ يحيى ننع واعدة ومحدثة وزاهدة وأمد جعشها هذا هيدا ما فعل الله بك محاد ربك كلكل أنت نوشك بالقيري برك يا سوري فضحت والله فضح وكف فضح حضوبي وكف فضح حضوبي بك قيامة وإلهي يقولي سوقبت يحيى كان والله هرقي يا إلهي مركز إلهي يقولي شيخا حن ما أنت عملك أكتيد الصور ديكتي إيد سلادها وتكبت باليسا شيخ بالي ويلي مركزان يا رب لحية صد حج
ayaan carafo joogsaday oon agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan is idhi dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camale islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa 36 xaju carafo istaagay iyo 63,000 oo khatmata alqur'aana intiiba markii laygu soo celiye layidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadanba hee adigaan ku imide bes waxaan garanayay inaan u tagaaya rab kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaat kaale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imide bes markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waa kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baa jannada ku galee dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adraktu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buuhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buuhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay hanu toobad keenno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag muslimiinta waxun baa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyakii laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirnaa inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna 40 sano ka horaan ku baabi'inay ayaa ilaa iminka dalkeenni iyo dadkeenni ka dhex socda qabyaalad soomaali diintiisu waa maxay waa qabyaalad waa ta halkaa ina dhigtay weeyaan waa ta ummadihii inaga reebtay weeyaan طريقة الوحيد طريقة كلية ما أنت أمضى أي كبت باديسو وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثو إلا أول كيكو محكوها قاقي موياني أول كي أمدا محكوها قاقي يقين يزهد ما يمدكوها قاقتي آخر كي أمدا محكو فسادينا البخل وطول الأمل بخل إنه قفكو dhaqaalihiisii caqligiisii cilmigiisii wakhtigiisii uu kala baqayla aakhiradiisii iyo diintiisii iyo inuu ku noolaado tuulul amal hidideela dheeray waan noolaan doonaa waan jiri doonaa waan gaadhi doonaa waan dhisi doonaa war waxaasi shaqadaada maahayne waxaa kaaga horraysa waan dhiman doonaa berri tola caawa gabalku ii dhici maayo aniga waa inaad tidhahdaa dariiqadaas rujuuc ila diin baa la rabaa ummadda in lagu soo celiyo maanta طريقة الوحيدة طريقة كلية أمدو أي دين تكسر نغن كرتا أي أمدو دين تكو قبسن كرتا ومعي وطريقة الدعوة والعلم لبدا أو ودا الصعدة أو كلا الصعدة معها لبدا صو ودا الصعدة أمدو كوبا بادين كرنا ما أنت إذا مسلمك دتك مسلمين تواوينا أي جوجنا إن دعوة كسر قبنا دعوة ومحي ummadda waxaan uga yeedhaynaa shirkigaan uga yeedhaynaa iimaankaan ugu yeedhaynaa khafladaan uga yeedhaynaa dikrigaan ugu yeedhaynaa jahligaan uga yeedhaynaa cilmigaan ugu yeedhaynaa dulmigaan uga yeedhaynaa ixsaanka iyo cadaaladaan uga yeedhaynaa alsumcatu walriyaa baan uga yeedhaynaa ikhlaaskaan ugu yeedhaynaa dadaalka adduunyada ay ummaddu ay ku dhex dhacday ee dharaariya habeen adduunya laga fikirayo ayaan ka soo dhex qabanaynaa dadaalka diintaan ummadda ugu yeedhaynaa suuqaan uga yeedhaynaa masaajidaan ugu yeedhaynaa adduunyadaan uga yeedhaynaa
aakhiradan ugu yeedhayna jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leena kaale culummada ku xidhma culummadaad ku daba liibaanaysaan hada huwa طariiqaة الdacwa inay diintu fido dacwadda u sababa inay diintu baaqi noqotona cilmiga u sababa haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajidda u soo noqdaan gaaladana intii ilaahay hidaayadda ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwadda ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwaddu waa maxay haddaa soo marnay dacwadda hadda maaha dacwatani dan waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacliim waa tadkiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxyihii iminka jawladdaa soo samaynayna magaxood baa maqaaxyaha magacoogii shaah macaan dhallinyaradeenii oo aan warba u haynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama war hayaanba dacwad taasa leh dacwad waa taas miskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim miskiidka haddaad muxaadaro ka jeedinayso waa tacliim miskiidka beerda ka jeedinayso waa tacliim dacwaddu waa maxay waa jawlaad ina laka fi nnahaari sabxan طawiila dabaal dheer baa ku ahaataa nebiga lagu yidhi maalintii dabaal dheer aayaddu waa maki awaa'il alaayaat alatii unzilat cala almustafa fi xayaati makiya fii suurati almuzammil weeyaan magaalada maka bad ma leh badda uu nebigu dhex dabaalanaya waa baddeeyey waa mujtamaca ninka lugaynaya berriga lugaynaya iyo ninka bad ku dhex jira ee dabaalanaya isku socod maaha ninka berriga lugaynaya hadduu daalo cadceeddu ay qabato geed har macaan buu eegan oo ku nasan cadceeddu markay ka jabtana uu iska caraabi soo sidaa maaha waa sayr baa la dhahaa u socda ka bad ku jira ee dabaalanaya dabaasha mar keliya u joojin karaa waa markuu badda ka baxo hadduu isagoo badweynta ku jira uu dabaasha joojiye maxaa dhacay ina laka fi nahaari sabxan 23 sana nebiga lagu yidhi dadaal waxaa nebiga la siiyo la amray laga cabiray dabaal ha seexan ha nasan ha murugo ha farxin ha qoslin saxaabadiisa kolkuu la jooga uu yadhoo la caddaynayay bas yadhoo la caddaynayay waqtigii baa noo dhowmaa jazaaka allah khayr waxaa laga cabiray nebiga sal alla alay slam dadaalkiisii dabaashii goormuu ka baxay maalintii sankaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataah wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysay buu ihi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila arafiiqi alaclaa ilaa jannati alfirdows maanta ay ugu dambaysay buu yidhi dhibaato dambe khalaas haddaan doonayno dacwadda walaalayaal dadka inaan ku dadaalno weeyaan haddaan doonayno ajyaal dadka soo socda maanta culammadu waa farkuturis dhakhtarradii culammada mid ka badan injineeradii culammadana siyaasiyiintii culammadana soomaalidu horta ilaa ka yar baa siyaasiya iska daa wax kale maadaama culammadu ay mujtamaca ku yar tahay waxaad ogaataa hoos baan u soconnaa inta culammada rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan ee ummadda ilaahay xaggiisa u jeedinaysa ay nagu yar tahay ee shareecadda inoo haysa inta ay yar yihiin ee tiradoodu tiro badan yahay hoos baan u socnaayo ogaada waan indiraasaynaa ummaddu waxay ku noqotaa ummadnimo waa hadday cilmigayga diinta haysata weeyaan labadaasaa markaa loo baahan yahay dacwad iyo tacliim in dacwaddana laga shaqeeyo oo ilaahay dartii loo baxo haddaan ilaahay dartii 40 u baxno iyo haddaan 2 bilood baxdo iyo haddaad 40 baxdo maxaad ka soo shaqaynaysaa ma taqaanaa naftaadaad islaaxinaysaa suudaan 2009kii magaalada la yidhahdo salaym waa xadka u dhexeeya masar iyo suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ilaa imika ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa sheekh saabir cali baa la odhan jiray
callaama khatiiba oo ilaahay uu siiyey quwata albalaaqa waalkalaam waalfasaaxa ayaan gurigiisa ku buuqday. maskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10 kun oo qof. markaasaa jamaacaddii maskiidkan lagu tidhi yaa jamaacata jabuuti dhegaysta, masaajidkan 2 saaca subax uu buuxsami doonaa, balaas waa la kala waayi. hadda imika sii diyaar garooba, masaajidka alaabtiina meel dhigta, balaaska sii qabsada. sidee ninka khatiibka halkan waxaa looga yimaadaa 100 kilomitir baa khudbadiisa looga yimaadaa. haynoo geeyahan ziyaarane daa'iman jamaacadada tartiibta waxaa ka mid ah ma nazaluu fii manzil, hadday magaalo ama maskiid ku degaan laabudda waa inay sheekha caalimka ziyaartaan. gurigiisii baan ugu tegnay markaas, jamaaca kuu joogtaa la yidhoo soo gala buu naga yidhi. waan gallay, khudbad buu warqadar ku diyaarsanayay. waa khatiib weliba warqadda uu ku qortaa maahayna waa yani yakhtub biduuni alwaraqa. markaasuu nagu yidhi min ayna? markaasaan ku yidhi min jabuuti. jabuuti ha dariiqeed soo marteen? waxaan ka yidhi waxaan soo marray jabuuti, sanca, khartuum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas. maxaad masaafada intaa leeg aad u soo gasheen buu yidhi bal ii sheega. markaasaan idhi waxaan u soo gallay liislaaxi anfusina. maxaan u soo gallay? sheekh waxaan u socnaa baan ku idhi liislaaxi anfusina, uma buu yidhi walitadkiiri ikhwaanina, iyo dadka walaalaha iyo muslimiintan inaan soo baraarujinno oo soo ziyaaranno. uma waliixyaa'i juhda nebi calayh isalaatu wasalaam, dadaalkii nebi maxamed uu ummadda uga tegay dhaxalka ahaana ee ummaddu ay culummada ku weecisay dhaxalkii ee caamaduna adduunye u jeesatayna, inaan caamada u sheegno oon ku nidhaano dadaalka diinta ininkana caamay waa laynaga rabaa ee culummada la shaqeeya oo garab culummada siiya. markaasuu yidhi kalaam cajiib. wax kale uma iman wax kale, intaa baan u soconnaa. wuxuu yidhi ayaa inaga dambeeya waxayna siiya. markaasaan idhi nin walba waa bimaalihi wa nafsihi. cajiib wuu kacay, sharaabkii buu noo dhigdhigay. kolkaan cabnay buu naga yidhi bas waa ni iman maskiidka iska socda. annagu waxaan leenahay ninkani su'aalaha siduu noo weydiiyey daqiiqa, talow khudbaddii dhannaydba bilow ka soo diyaari uun tabliiq. cajiib. mambarkii mar aliya markuu fuulay hadalkiisa waxuu ka bilaabay, jamaaca iigu timiday buu yidhi guriga. waxay igu yidhaahdeen, waxaan ku yidhi maxaad dalka u timaadeen? waxay igu yidhaahdeen waxaan u soconnaa islaaxa naftayada. waa taan annaku maanta aan ilowsannahay buu yidhi haddaan culummo nahay. ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. aayaddaa intuu qabtay buu saacad iyo badh buu ka dhigay khudbaddii jumcada. islaaxu nafs, nafta oo la islaaxiyaa waa fardu cayn calaa kulli muslim. 10 kun oo qof oo masjidka oo musalliina salaantooda bal ka bax waa kaas. 10 kun oo qof oo musalliintiya salaaddii markii laga baxay aawe jamaacaddii waa kuwan salaan ummaddii oo dhan. waxaan ka wadaa war haddaad bax lagaa yidhahdo ilaahay dartii u bax, waxaad u baxaysaa islaaxa naftaada. waxaad soo baranaysaa fadhiga maskiidka. ayaan dhaweyta jamaacada 40 cisho oo noo soo noqotay jabuuti anuu markaska jooga. ayaan ka yidhi war aad 40 maxaad ka soo faa'iidaan ka yidhi. mid baa yidhi sheekh anuu salaadiiba haddaan bilaabay buu yidhi. maalintay jamaacaddu xaafadda iga soo qaadeen baan salaadiiba ayaan bilaabay. adna maxaad ka faa'iiday baan ku nidho. kiina wuxuu yidhi anuu salaadda waan tukan jire subaxa igu adka, salaadda subax baa igu adkayd buu yidhi. salaaddii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buu ilaahay idankii haddee toole. adna maxaad ka faa'iidaan yidhi dacwaddo. wuxuu yidhi anin qur-aanka igu adkaa buu yidhi. horta xifdigii qur-aanka waan bilaabay, juzcamaya tabaarig baa soo dhameeyey buu yidhi. waxaana iga ballana buu yidhi maanta markaan sidaa u noqdo qur-aanka inaan xafidon cilmiga barto. halkaa markay marayso mid baa sii ooyey. markaas war bal aamus aduha ooyina maxaad soo faa'iido? waa la aamusiin kari waaye. markaa waan yaabnay, annakii baan la ooynaba. maxaa helay ninka ma xanuunsan yahay? amiirkii baan igu yidhi ma xanuunsanee u kaadiya. markaasaan maxaad la oydo, maxaad ka soo faa'iido? wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala. mukhadaraadku waad garanaysaan baan u malayn, waxaan maandooriyaha. hooyadayda i dhashay baan dharbaaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi. wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi.
قف والبهلك وكبو كيما كسو بوكسن بس كما سو بوكسن هذا هو تغيير البيئة مددا بحلق ليها wax kala maaha بيئة غير وين بيئتنا تكون dhex jirto yar badil la insha Allah hadii la naga dalbana waan baxaynaa insha Allah dhahada mise waxaad leedihiin masjid bari anagoo joogno oday baa yidhi niyo wacdigiina yar marka hore aad wacdinaysaan aad baan u yar dhagaysanaa laakiin marka dambe ka naxnaa buu yidhi waa markee baan idho marka qalinkiiyo buugga aad soo qaadataan aad leedihiin yaa ilaahay dartii u baxaya markaasaan ka naxnaa buu yidhi waxaan idhi haddaba i dhegayso baan ku yidhi adeer ninku markuu dhakhtarka tago isagoo xumad ahaysoo jiran ayaa waxaa loo sameeyaa irbadda ninka dhakhtarku meesha uu ku mudaayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alkool yar lagu tuujiyaa waa qabow waana macaan irbaddiina way daba taallaa soo maha hadduu yidhahda ka warran suufkaa yar aniga iigu ekaysii ma bogsanayaa maxaa la odhanayaa waar daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo khayr baa inaga muuqda allah inii ziyaadiyo allah ina barakeeyo in sha allahu tacaala dadaalkaa diinta iyo cilmiga iyo dacwadda inaan kulmino soo diyaar uma nihin in sha allah jamaacadada ini yimaada inaad la fadhiisataan oo dhegaysataan oo wakhtigiinna aad wax ka siisaanna diyaar ma u nahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo maytaadkeenna allaha u naxariisto اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله